كو يطبان كان أريمود أو أندونيو إنا كبرو أما أنكوسو قدبيو أيا أنيقا وحي إيقو قادتي إنا كبرتو إن كبضان 10 سنو أديقنا مانتا وحان كوكسو قدبين أيا إن كير 3 دقيقة كو نولاشا قف لما سوغيسو أرور هوركا أو دقاق سميه ديب ماري حالة أدكو سوغان تحي مربا هدي صلاة الصبح أدكتيت أو أدقاق سميسيد هبال وحاء إن أدهرتا دا أدك أركيسو ربي كو إلهامية إسلام رحانتانا كو هرسيدا إن أدهشيد وحاد قبتيد waxaad dhici kartaa inaad shaqo haynin waxaad dhici kartaa inaadan aqoonin ama aadan ogeynin meel aad aadid laakiin se horta adiga niyadda wax gasho istaag salaad subax tuko dhaqaaq samee biidnillaah hortaada ayaad rabbigaaga ka arkaysaa isaga ayaana ku ilhaaminaya biidnillaah number 2 ahmiyadda koowaad si daryeelka iyo dhiirigelinta naftaada haddii ay wax kugu dhacaan ama wax ay ku soo food saaraan is adkay oo dunida ha ka harin haddii aad dunida aad ka hartid waxaad ogaanaysaa dunida ma istaagayso way soconaysaa adigana dan kuguma jirto haddii ay dunida ay ka tagto adigana meeshaada inaad iska fadhigid dad badan marka dunida gadaasheeda ayay ku feen dunidiina way ka tagtay wayna gaari la'yihiin haddaba haddii aad jiiftid استاك أو دقاق هدي أتاغن تهي هتاغنان صعو وحقبسو هدي أتكفتي كع أو جفو دونيدنا كدبتك هنقول كوا دونيدان قده هيدا كو خساري أو دونيدنا كتكتي تنسد حادو حاي تهي هدي آدان أشاقينين نولاشا ريادا هذا أما وحا آدكو تاميسو وحاد أغانيسا oo hubaal ah oo xaqiiqo ah inaad ka shaqeynayso dhisidda qof kale riyadiisa taasi intaysan kugu dhicin u istaag dhisidda riyadaada iyo waliba xaqiijinta waxyaabaha adiga aad ku taamayso haddii kale u diyaar garow qof kale waxa uu ku taamayo inaad dhistid ama qof kale riyadiisa aad dhistid midda afraad ayaa waxay tahay haddii aadan u istaagin horumarinta naftaada iyo noloshaada waxaad shaqaale ka noqonaysaa horumarinta qof kale noloshiisa iyo nafsadiisa intaysan taa kugu dhicin oo aadan shaqaale ka noqonin horumarinta qof kale nafsadiisa iyo noloshiisa kow nafsadaada ayaa mas'uuliyad ka saaran tahay horumarka aad doonayso naftaada ayaa u xaq leh waayo sidoo حبيبكينا عليه الصلاة والسلام وينبري نفسدا حق أي leedahay wax walbana xaqiisa in la siiyo xaqsiinta nafsadaada ka bilaabanaysa marka midda shanaad ayaa waxay tahay shaqadaada qabso adiga oo aamusan shaqadaada marka aad ku guuleysatid kadibna dabaaldeg waliba si adiga ku gaar ah khaas ku ah waayo dadku waxay jecel yihiin burburinta tan lixaad ayaa waxay tahay tagtadaada ha ka shalaayeen wixii ku soo marayna wax ka baro horeyna u soco waayo shalay ma soo laabanayso waxaan soo laabanayninna tamartaada ha ku baabi'in midda toddobaad ayaa waxay tahay qofna dan kama laha haddii aad u shaqayso si adag oo dadaal badan si aad maanta uga wanaagsanaato birri waayo dantaada adiga baa u damqanaya ee dantaada garo oo waxay tahayna ku dadaal midda sideedaad ayaa waxay tahay dhigaha ka furayso talooyinka ay ku siinayaan kuwa ku nool nolosha aadan adiga doonaynin inaad ku noolaato oo ay iyagu ku nool yihiin dhigaha ka furayso talooyinka ay ku siinayaan kuwa aan ku noolayn nolosha adiga aad doonayso kuwa aan ku noolayn nolosha adiga aad doonayso ta sideedaad ayaa waxay tahay dhigaha ka furayso talooyinka tan sideedaad ayaa waxay tahay dhigaha ka furayso talooyinka ay ku siinayaan kuwa aan ku noolayn nolosha adiga aad doonaysid inaad ku noolaato qofba haddii talo uu ku siinayo de waxaa talo laga qaataa qof nolosha adiga aad doonaysid ku nool
balse noloshaada nolol ka duwan qofka haddii uu ku nool yahay ama mid ka sii hooseysaba uu ku nool yahay taladiisa maxay macno ayay soo kordhinaysaa sidaas darteed dhigaha ka furayso talooyinka ay ku siinayaan kuwa aan ku noolayn nolosha aad doonaysid adiga inaad ku noolaatid midda sagaalaad ayaa waxay tahay xakamee dareemayaashaada waayo maskaxda degani ayaa maareyn karta waxyaabaha ku soo waajihi kara haddii aad noqoto marka qof caatifi ah ama qof dareemayaashiisa aan maamuli karin haddii aad noqotid marka waxaad ogaanaysaa oo xaqiiqo ah in nolosha khasaarooyin badan aad la kulmaysid turunturooyin badanna ay ku soo waajahayaan waayo qofka caatifiga ah qalbiga ayuu ka fikiraa ee maskaxda kama fikiro maskaxda ka fikir si deganna u fikir si aad u maarayso ama si aad awood ugu yeelato inaad u maarayso xaalad kasta oo markaasi ku soo waajahda tobnaad ayaa waxay tahay haddii aad la kulanto ama aad heshid qof kaa wanaagsan hanici ee tala weydiiso qofkaasi kaa wanaagsan waxaa laga doonayaa inaad iskaashi aad la samayso si aad isku dhaafsataan macluumaadyada muhiimka ah ee qofka kale uu u baahan yahay inta badan markaan aragno qof naga wanaagsan waa nacnaa xumaan ayaan ka sheegnaa waana ceebaynaa sumcadiisa ayaan dilnaa yacni si silbi ah ama si taban ayaan uga sheekaynaynaa haddaba qofka noocaas oo kale ah ama haddii aad la kulantid qof adiga kaa wanaagsan hanici la fariiso tala weydiiso iskaashi la samee macluumaadyada isdhaafsada wax badan baad ka faa'iidaysaa ama aad ka dheefaysaa 11aad ayaa waxay tahay nafsadaada heshiis nabadeed la saxeexo danahaagana raaco mar haddii nafsadaada aad heshiis aad la tahay waxaa hubaal ah waxaa ku hagaagaya hiigsigaaga hadafyadaadana way ku xaqiiqoobayaan midaasi ayaa bilaa shaki ah hase ahaatee haddii adiga iyo nafsadaada aadan iska warhayn haddii adigana gees aad u socotid nafsadaadana gees kale aad u socotid haddii adiga iyo nafsadaada aad dagaalan tihiin waxba ma xaqiijin kartid naftaada wax bay ku sheegaysaa waad ka diidaysaa ama naftaada waxaad u sheegaysaa way ka diidaysaa waxaad tusaale ahaan nafsadaada waxaad leedahay istaag subaxdii shaqo tag subaxdii markii la gaarana nafsada maxay ku leedahay maya ha bixino seexo joog naso raaxayso marka heshiis idinkama dhexeeyo saas darteed marka waxa aad iyo aad muhiim u ah marka inaad nafsadaada aad heshiis nabadeed aad la saxiixatid si hiigsigaagana uu hagaago hadafyadaadana ay ku xaqiiqoobaan qalbiga hala waasiyo